بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada aan idin kugu hayno saakay barnaamijka waxa kamid ah Trump oo qiray in Mareykanka ay haysato hub la'aan isla markaasna dagaalka Iran dhawaan uu soo afjarmi doono Sacuudiga oo ka digay weerar isu dabaridan oo uga imaan kara Xuutiyiinta Iran iyo maleeshiyaadka Ciraaq Iran oo dignin ka soo saartay qorshaha Mareykanku ku ballaarinaya kuna casriyeynayo hubkan wax gumaada ee nuclear-ka Sacuudiga Pakistan iyo Turkiga oo maanta kala saxiixanaya heshiis difaac oo wada jira laanta sirdoonka Israa'iil ee Mossad oo shaqada ka cayrisay saraakiil fara badan kadib fashilka ujeedooyinkii dagaalka Iran loo galay ku dhawaad 20 qof oo dhimasho dhaawac ka soo gaaray toogasho arday 14 sano jir ah oo ka geystay iskuul ku yaal dalka Thailand dhamaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu nahwada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka waada markala daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer oo aadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku hormaraynaa magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga halkaasi oo maantay dhacdo weyn lagu wado inay ka dhacdo waa heshiis iskaashi dhanka difaaca military oo ay kala saxiixan doonaan Turkiga Pakistan iyo Sacuudiga saddexdan wadan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay wadeen wada hadallo arrimahani la xiriira aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani hogaamiyaasha Saudi Arabia Pakistan iyo Turkiga ayaa lagu wadaa inay maanta oo Jimcaha magaalada Jeddah ku kala saxiixdaan heshiis difaac oo saddex geesood ah sida ay sheegeen ila xogaal ah oo ku dhow dawladahaasi iyo hay'adaha amniga warar ay baahiyeen wakaaladaha wararka ee AFP iyo Reuters ayaa tilmaamaya in heshiiskan muddo dheer laga wada hadlayay balse isbedelada amni iyo kuwa siyaasadeed ee ka socda gobolka ay dadajiyeen dhamaystirkiisa heshiiska ayaa waxaa la filayaa inay qaranka ku doogaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa horaantii sanadkan wuxuu xaqiijiyay in Ankara ay waday wadahadallo ku saabsan heshiis difaac oo ay la yeelanayso Sacuudiga iyo Pakistan sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan Pakistan ayaa sheegay in qabiyo qoraalka heshiiska la diyaariyay kadib wada xaajoodyo socday ku dhawaad hal sano wasiirka wax soo saarka gaashaandhigga Pakistan Riza Hayat Haraja ayaa daboolka ka qaaday in heshiiska saddex geesoodka ahi uu ka madax banaan yahay heshiiskii laba geesoodka ahaa ee Sacuudiga iyo Pakistan ay ku dhawaaqeen sanadkii hore isagoo xusay in qabiyo qoraalka la dhamaystiray isla markaasna ay saddexda dal ku gada jiraan ansixintiisa iyo in la dhamaystiro ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif iyo taliyaha ciidanka Pakistan General Asim Munir ayaa khamiistii shalay ahayd waxay gaareen dalka Sacuudiga halka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan maanta uu tagayo Jeddah si uu uga qayb galo munaasabadda saxiixa Sacuudiga iyo Pakistan ayaa horay u lahaa iskaashi difaac oo laba geesood ah hase yeeshee heshiiskan cusub ee saddexda dal ayaa la filayaa inuu ballaariyo iskaashiga dhinacyada difaaca tababarada ciidamada warshadaha militariga iyo isku duwidda amniga gobolka warbaahinta caalamiga ah ayaa sidoo kale waxay xustay in heshiiskan uu soo jiitay indhaha caalamka iyadoo ay jiraan su'aalo la xiriira suurtagalnimada iskaashi ku saabsan teknolojiyadda nuclear-ka maadaama Pakistan ay ka mid tahay wadamada ku hubaysan nuclear-ka
وهجاج warkan iyo waliba wixii ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo haatan waxaynu ku sii soconaynaa war kale oo Sacuudiga la xiriira warkan oo la sheegayo dhiilo culus inuu xambaarsan yahay mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Sacuudiga ayaa farta ku fiiqay in warbixino sirdoon oo ay wadaageen Sacuudiga Mareykanka iyo dalal bariga dhexe ku yaal ay muujinayaan in maleeshiyaadka hubaysan ee Ciraaq ay iskaashi la sameynayaan dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta ee Yemen iyadoo la sheegay in ay qorsheynayaan weeraradan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dusha sare ay kala soconayaan ayna isku dabaridayaan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC sida ay baahisay wakaaladda wararka Reuters mas'uulka oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa waxa uu sheegay in weerarada la filayo inay beegsan karaan kaabayaasha rayidka iyo dhaqaalaha oo ay ku jiraan xarumaha tamarta garoomada dayuuradaha iyo dekadaha mas'uulku wuxuu sheegay in dawladda Sacuudiga ay la socoto dhaqdhaqaaqyo la xiriira gudbinta diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo sawaariikh taasi oo muujinaysa in weeraro isku mar ah lagu soo qaadi karo waqooyiga iyo koonfurta dalka Sacuudiga warka ayaa waxa intaasi ku daraya in qatartan ay ku soo beegmayso xilli Riyaad ay sii wado dadaalada dhanka diblomaasiyadda ee lagu dejinayo xiisadaha gobolka waxaana la xusay in weerarada la qorsheynayo ujeedadoodu ay tahay carqaladaynta wadahadalada nabadda sida hadalka loo yiri mas'uulkan waxa kale oo uu sheegay in iskaashiga amniga ee u dhaxeeya Sacuudiga iyo Mareykanka wali uu yahay mid heerkiisu aad u sareeyo isla markaasna Sacuudiga diyaar u yahay inuu qaado dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah si uu uga jawaabo weerar kasta geesta kale isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee taageera dawladda Yemen ayaa waxa uu sheegay in 11 qof oo rayid ah ay ku dhaawacmeen weerar lagu eedeeyay Xuutiyiinta oo ka dhacay gobolka xuduudda ku yaala ee Najran dhaawacyada ayaa la sheegay inay isugu jiraan muwaadiniin Sacuudiyaan iyo waliba sidoo kale dad u dhashay Yemen Masar iyo Pakistan Xuutiyiinta ayaa dhankooda horey u sheegay inay weerareen laba markab oo shidaal oo Sacuudiga uu leeyahay mid ka mid ahna wuxuu gooshayay gacanka cadmeed halka kalena uu marayay ama ku sugnaa meel ku dhow dekada Yambu ee badda Cas iyadoo la sheegayo in weeraradu ay qayb ka yihiin waxa lagu tilmaamay go'doomin badeeda oo uu soo rogay ururka Xuutiyiinta ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka dawladda Sacuudiga waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow wararka kale laakiin sidaad kula socoteen wararkayagii ugu dambeeyay HBN waxay hawada gelisay kanaal cusub oo lagu magacaabo RTV ku soo dhawow RTV adduunyada dhammaanteed afarteeda dhinac aagaad ka joogtaba arwa wehelkaaga iyo midka jooga agtaada dhacdada caalamka ogan arrimaha islaamka iyo sheekooyin ashqaraar leh iyo taariikh aan la ilaawin ayaad kala soconaysaa RTV waa warbaahin aad kala soconayso dhacdooyinka dunida oo faahfaahsan taariikhda islaamka qisooyin diini ah sooyaalka Soomaalida documentaries ama raadreeb iyo barnaamijyo kale oo aad ku xiisa gelinaya haddaba hadda ku soo biir RTV aqoon akhbaar runayooga hagaag haddaba RTV qaybta hoose ee falcelinta ama commentiska ayaan linkiga dhigaynaa halkaas ayaad kaga biiri kartaa waxaana ku jira barnaamijyo xiiso leh oo runtii aad uga faa'iidi doontaan barnaamijyada aynu soo daynay waxaa ka mid ah 7 masjid ee ugu qadiimsan waddanka Ruushka isbarbardhig aynu ku samaynayno awoodda military ee Masar iyo Israa'iil yaa guulaysan kara haddii dagaal uu dhex maro waxa kaloo halkaasi aynu ku soo bandhignay warbixin aynu dib ugu eegayno taariikhda halyeeyada qaaradda Afrika gaar ahaan Thomas Sankara hogaamiyihii hore ee waddankaasi Burkina Faso sheeka gaar ah ayaa sidoo kale ku jirta waxa kaloo barnaamijkaasi ku jira wadamada ku hubaysan hubka nuclearka oo barnaamij gaar ah aynu ka diyaarinay oo macluumaad fara badan halkaasi aad ka heli kartaan haddaba markaad dhamaysto barnaamijkan booqo RTV si aad uga hesho macluumaadyo dheeraad ah
hana ilaawin inaad subscribe saarto oo aad ka mid noqoto dadka ugu horeeya ee taariikhda meel ka geli kara markii kanaalkaasi uu weynaado aad baad u mahadsantihiin hagaag wararka aynu ku sii soconay xagga dalkaasi Thailand ayaynu eegaynaa halkaasi oo maantay arrin culus ay ka dhacday kadib markii la sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday iskuul ku yaal dalka Thailand sida ay tabisay warbaahinta gudaha oo booliiska soo xiganaysa shabakada warbaahinta ee Thai PBS ayaa waxay sheegaysaa in dadka dhaawaca tiradooda imika ay gaartay 15 waxaana Reuters ay baahisay in 2 qof ee dhintay mid kamid uu yahay macallin waxaana wararku sidoo kale ay sheegayaan in dad kale oo kamid ahaa ardaydii wax ka baranaysa halkaasi ay ku dhaawacmeen booliiska ayaa waxa uu sheegayaa in qofka weerarka geystay uu ahaa wiil 14 jir ah oo fasalka 9aad dhiganayay waxaana lagu soo waramayaa in xaaladdu ay tahay mid cirka ku shareeran wixii warar arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaan u gudbaynaa gordhow wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe Trump oo qirtay Mareykanka in ay ku sii yaraanayaan hubka noocyadiisa kala duwan waxaana uu sheegaya dagaalku inuu soo afjarmi karno laanta sirdoonka ee Israa'iil oo shaqada ka eeriday saraakiil fara badan kadib markii lagu fashilmay ujeedooyinka dagaalka loo galay intaana u gudbin wararkaas iyo warar hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay ayna ku hakanno qadar xayeysiina